waxaanu helnay cod laga duubay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlaya culummada Suufiya ee magaalada Muqdisho xilli ay taagneed xiisad u dhaxaysa ayaga iyo Sheekh Maxamed Cabdi Umal. madaxweynaha ayaa codkan ku sheegay in dowladda joojisay muxaadaradii uu Sheekh Umal ku qaban lahaa magaalada Muqdisho kadib markii culummada ay ka hor yimaadeen. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xilli ay kulan lahaayeen culummada Suufiya oo wasiiru dowlaha madaxtooyada Cabduqaadir Baghdadi oo Suufida kamid ah uu qadka taleefanka soo galiyay madaxweynaha. markii aan xaaladda aragnay waxaan isku qancinay in beri la baajiyo muxaadarada isbartiibada ayuu yiri madaxweyne Farmaajo, waxaana kadib xigay culummada Suufiya oo dhahaya Allahu Akbar. madaxweynaha ayaa codkan ku sheegaya in dowladda ay ku qasban tahay in ay amniga ilaaliso, sidaas daraadeedna uusan dooneynin isku dhac ka dhaca garoonka oo dad badani ay ku waxyeeloobaan. إلى الله الدقات كثيرين صبر الدقات الذين وضدك سكوة لسان وحلول لسان نقول ومرنا قف تقريب كريم كرام أما قف نحاول على عقيدتنا هذه سؤال صاحب العلم زوجين مركز على حال فقه حالتي أبهجي waxaan ku qanciyay aniga dowlad gaashka ahaa in isbartiibada baajiyo beri somakan isbartiibada in la baajiyo isaga naftigiisa wallahi markii si loo fiiriyo cadaaladda waa fiican ee la sameeyeen halkaas inuu yimaado uu iska soo xiqaamay ولعك فتح بقولي كنت كل قضاء صوت عليه وماشي فتحات بيها وجري وتقاليه وكيري وحال إلى هذا حتى لما كي هاوشان إكريت مو قارن قاي وحنا دولة دولة إلى أمانك إلى الصوت وهو حقيقة هاي وجعل العيد معها إلى الصوت لكن الشعب يحسنون لنا دولة مرة وفوق أصفاد معي مرة حلقة أسيك وضعي في جماله حلقة فولا وعمل وضق وارهية حلقة وعمل كسر قالوا ما تيب كسر قالوا إنت تصدع لهي وكعفة مقاك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد marka alxamdulilah ninkii waa martin yooya inkastoo dowladda Soomaaliyeed dalkan wax ka ahayn galadana martin ugu ahayn laakiin ninkii waa safar dhaqanka Soomaaliga ah oo qofka hadduu safar kaaga yimaado oo soo martiyo hadda dhaqanka Soomaaliga waa qaanuun idiba sheegaya in loo loogo oo la soo dhaweeyo إلا وكاتب يعني وفكر في ورد ووصل صعراه وما فعله معنا قف وحرة معها حتى حتى عدو يعني دوبر وصابر صح صبر كل ما له ما السؤال وحوي يوم حلقة أو إذا أرجع حلقة سورية لا يسوع فقط marka runtii aniga culumo waxaan ka filayay sidaas إلى قضية وقاد مر أبو بصر كل مسجد نامك ومكان ما هل أهمي كان طريقة وكفى يتسلعين وحي يهروي وريح الروان فضعين لكن إن شاء الله لما تقارب اسكبير نوغس وجيستو إن دولتها كعنا صيح وما فعلا marka intaas aan waxaan arkaynay inay runtii shacabka u wanaagsan
dowladda ugu wanaagsan shabaabkana u xun cadowgeeduna waa iyaga intaa isu sheegto inta dhexdeenna aan isu muuqanno shabaabku waa sii joogayaan dhibkan waa lagu sii haynaya waana hadda farxadda maanta ka muuqato shabaab caadi ma ah marka cid walba si loo kaashado shabaab oo aan meel uga soo jeesano oo aan maaragtay caqiidadooda iyo si u dhaqmaa iyo maxaan ku raahdaa dhibka wadanku hadan laga qabto marka waa hawshu meesha dhimanaysaa idinkuna dee waa iga mahad celiyey isoo sheegay waad muujiseen maxaan ku raahdaa xadda fiican هاسي وكمغلين اسمع كان سو قوي خوارجتها إذا قصوا نحكوما marka wax kasta dhici kara mar balaayo kasta ku soo dhumanaysa oo ma fahmin صح marka alxamdulillah waa idin mahad celiyey وقابلنا إن شاء الله أنه وصول مالنا أو محافظة ولا شيء أبو غادر ونبقى وغنى وقبل عليه وتقول له إلى وخصوصا غير ما صدق عبد الله محمد هذه هذا قامت رئيس الله حسنت هاي وأنا السلام على إلهي من الأمور waxayna haddii saas caawa ama beri guddi ilaa 20 qof ah ilaa 20 ilaa 25 bay ku soo saareen ku imaanaya insha Allah